Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada sheekada. Fadlan intaan sheekada bilaawin subscribe channelka noo saar gambaleelkana furo si uu muuqaal kasta kugu soo dhaco. Muuqaalka haddaad ka heshay like noo saar. Haddaad ka heshay muuqaalka share noo dheh asxaabta kusoo dhawaada sheekada horarka kusoo dhawaada. Sheekadani waxay igu dhacday anigoo jiro 12 sano. Waxaan lahaa asxaab aad u far badan oo markasta wada ciyaarno. Anigana markaas waxaan dhiganayay iskool. Markasta waxaan dheeli jirnay hal ciyaar, balse maalinkaasi waxaa jeclaysanay inaan ciyaartan aan iska dayno oon aadno meel. Balse macalinka wuxuu noo sheegay inaan aadayno ciyaartaas doonta oo badda inta maalin aan dalxiiska leenahay. Aniga saaxiibkay runtii aad ayaan markaas ugu faraxnay. Markastana saaxiibkay waa isku dhaweyn. Maalinka xigta waxaan aadnay dalxiiska saan u baxno, balse markaasi anigoo wadada marayno ayaan waxaan arkay waxaan la yaabo aadna iga yaabiyay. Runtii waxaan arkay naag wadada geeskeeda taagan oo markaasi aniga soo fiirinayso. Runtii way qoslaysay, waxay ku qoslaysay ma aqaano, balse dharkeeda dhan wuu jeexnaa inay qof soo dhashay camal. Aniga markaas waxaan dhahay naag waalan waaye, waa ka sii socday. Waxaan ii darnaa inaan markaas aan gaaro goobta rabo. Runtii asxaab badan ayaan markaas ahayn. Doonta markaas soo kornay ayaa waxaa la yiri naagta doonta ayaa waxay tiri doonta saddex looma ogolo, waxaa loo ogol yahay 2 qof doontiba. Kadib aniga saaxiibkay waa ku faraxnay runtii. Markaas saaxiibkay wuxuu rabay inaan asaga la koro, balse waan ka yeelay. Hal doon ayaa wada qaadanayna ayaan dhahay. Aniga saaxiibkay doonta u horeysa ayaa markaas saarnayn, balse anigoo badda ku jirna ayaan waxaan arkay waxaan la yaabay naagtii oo markaasi ayadana saaran doon kale. Runtii waxaan isweydiiyay naagta waxa inta keenay ayadana oo orod badna ayaa is dhahay, balse way soo fiirsay. Waxay afka ku haysatay koob. Runtii aniga saaxiibkay waa yaabaneen. Kadib doonta ayay ka degtay, waxayna istaagtay xeebta. Aad ayay markaas noo fiirinaysay, waxayna lahayd wariyaa wiilashaydii. Kadibna runtii aniga waan yaabay. Goormee hooyada noqotay ayaan dhahay, dhidid ayaa iga soo daatay. Aad ayaan markaas u cabsooday aniga, balse saaxiibka ayaa markaas ila saaraa doonta. Wuxuu yiri saaxiib sama ahayn naagtii meesha aan kusoo maraynay. Kadib waxaan dhahay haa, balse waxaan dhahay waan ka degaynaa doonta. Kadib doonta ayaa markaas kasoo degnay anigoo runtii aad u dhididsan ayaa waxaan soo aadnay dhanka saaxiibadeen. Balse intaan saaxiibadan soo gaarin ayaa waxaana soo ceersaday naagtii markaas. Haddana waan la yaabay runtii. Kadib naagtii ayaa noo yeertay oo doonta waxay tiri dharka iskaga tirtira biyaha saad u baxdin. Maalinka xigta saaxiibkii waa kasoo tagay, aniga waan soo baxay. Waxaan soo aaday dhanka cideedii. Gaari ayaa markaasi daba socday. Runtii wadada geeskeeda ayaan ka istaagay, balse gaariga muraayadihiisa wax lagama arkaynin. Anigana horteyda ayaan fiirinayay. Daqiiqado kadib naagta ayaa markaasi furtay. Waxayna dhahday wiilkeygii xagee iga cararaysaa hooyo, inaa ku daynay ma moodaysaa, hadda wiil kale aan wataa. Kadib gadaal waxaa u saarnaa wiil kale. Runtii aad ayaa markaas u naxay. Waxaa is dhahay alloora naagtan waa dad cun, waayo nin wiil yar ayaa gadaal u saaran. Aad ayaan markaas u baqay. Waxayna ahayd habeen saq dhaca. Runtii waxaan isweydiiyay naagtan waxay kugu yeerayso. Aadna waa markaas waan u cabsooday, balse waxaan jeclaystay inaan baaskiilka aan la cararo naagtan si ii soo qabanin. Kadib dan iyo hele kama galin. Cabaar markaas socda ayay gaariga markaasi horteedii ku goysay. Runtii aad ayaa markaas u yaabay. Waxayna ahayd 6 saac iyo bar habeennimo. Xaafadana waxay ahayd cidlo, qof ma soconin. Xaafadeedana waxay jirtay xoogaha, balse waxaan isweydiiyay xaafadda ma uga carartaa. Anigoo markaas su'aashaas isweydiinayo ayaa shanqar waxaa ka yeertay dhanka gaariga. Albaabka ayay soo furtay naagtii. Aniga markaasi waan naxay. Runtii si u soo socotay ayaa markaasi daba gedisay. Aniga halkaas ayaan ku dhacay, balse booskoolad ayaa markaasi la soo baxday. Anigana aad ayaan markaas u cabsooday. Kadib waxay la soo baxday booskooladda. Anigana waa dhididay, balse meeshaas ayaa aniga ku soo waxay. Kadib maalinkaas way soo qaaday. Habeenkaas waxay soo geysay gaariga gadaashiisa ayay gelisay. Kadib boolis ayaan maqlay shanqartoodii. Gaari boolis inuu wadada yaala ayaan ogaaday, balse waxaan dhahay boolis
kadib boolisku waxay dhaheen waan ku maqalnaa waa kaa soo gaaraynaa. Kadib waxaan dhahay booliska in la afduubtay ayaan u sheegay, balse booliska halkaas ayay iga soo bixiyeen, gaarigana way joojiyeen. Kadib meesha ayay iga soo bixiyeen booliska, waxayna dhaheen gacmaha ayaa xarig kaa jaraynaa, midi ayay iga gooyeen xariga. Booliska waxay ii sheegeen goob caafimaadka aad ayay dhaheen. Kadibna waxaan imaaday goob caafimaad, anigoo maalinkaas subaxsan ayaa asxaabteeda ii imaadeen, dib dambana uma aadin. Saaxiibkeena waa isku imaanay, hadee waxaan u sheegay saaxiibkay haddii booliska ahaan lahayn inaan halkaas aniga ligula tagi lahaa oo dib dambe aliya arki lahayn. Asxaabta leega saar muuqaal.